waxa ay isqabeen 40 sano haddana waxa uu ku qabay been ma aysan aqoon magaciisa saxda ah halka uu ka yimid iyo taariikhdiisii hore waxa ay ahayd midna ma aysan la socon waa qisada Cheryl iyo Bobby Love ku soo dhawaada xagee ka bilaabatay qisada Cheryl iyo Bobby Love subaxyada kamid ah iyadoo hurdo ka soo kacday ee shaaheedii quraacdeedii karsanaysa ayaa irida loo soo garaacay markii ay furtayna waa ciidankii markaasay ku dhaheen aaway ninkii guriga degnaa markaasay tiri waa hurda way baxeen iridkii u garaaceen ayagoo degdegsan xanaaqna uu ka muuqdo iridkii markay u garaaceen uu loo galay ninkii waxaa la weydiiyey su'aashii ugu horeysay ee nimankii weydiiyeen askarta ahaa waxay ahayd magacaa wuxuu ku jawaabayay Bobby Love markaasay dhaheen noo sheeg magacaad runta ah asagoo naxsan oo codkana hoos u dhigay ayuu ku dhahay Walter Miller ayaa la dhahaa ayadoo irida taagneed oo fiiriyeysay ay ku tiri magacaada maxaa waaye kor u qaad markaasay dhaheen dib u laabo soo gelin qolkee askartii waxay celinayaan ayada oo ay ku celihayaan banaanka ayadana waxa ay la yaaban tahay ninkan magaca cusub ee la soo baxay iyo askartan waxa ay ka rabaan iyo waxa uu soo sameeyay ee loo daba joogo naagtii dib ay u celiyeen ay leeyihiin joog banaanka soo gelin asagana intay garbaduubeen ay wadeen oo waxay geeyeen xabsiga markii ay geeyeen asaga waxa uu aaminsanaa in qisadiisii hore buugeedii la laabay aysan dibna u soo noolaa doonin way ay baxday xabsigii ay uga tagtay waxa ayna weydiisay waxa ay tahay markaasuu uga sheekeeyay noloshiisii meeshii ay ka soo bilaabatay ilaa iyo meeshii ay marayso markiisii hore wuxuu ahaa cunug iska horeer faqiir ah ka dhashay noloshii iska basiidka ku nool ayuu ka dhashay hooyadiis waxa ay dhashay 8 caruur ah oo ayada ay u shaqayso ayada ay kuriso asagana waxa uu ahaa xilligaas cunug iska fudud oo magaalkiisa iyo suuqa ku jira ayuu ahaa wax alla iyo wixii uu arko ayuu ku noolaa oo samaysan jiray wax alla iyo wixii uu rabo ama uu arkay uu samaysan jiray oo dadka boorsooyinkooda ayuu xadi jiray lacagta kala bixi jiray iskuulka ardada la dhigato xafiisyada iskuulka meel alle iyo meeshii uu tago waxa ku jiro dhan intuu ka qaato ayuu xado usas ku noolaan jiray hooyadiis wax walba samaysay si uga jirto tuuganimada cunugeedii uu bartay laakiin waa ay ku guuldareysatay tijaabo walba ee u martay in wiilkeedii ay samayso waxaa dhacday xilliyada kamid ah in wiilkii asagoo iskuulka dhigahay ardadii iskuulka iyo xafiiskii iyo uu lacagtii ka xaday la waday wiilkii la geeyay meel dhaqan celin lagu sameeyo ilmaha dhaqan celintii cunto oo aan fiicnayna meesha laga cunaa dadkii uu meesha kula noolaa oo ayagana dhaqan celintii loo keeno cuntadii meesha inay meesha xabsiga kale u egtahay oo qofku uusan bixi karin oo meeshii aysan xuriid ka jirin waa u arkeysa waaye habeenada kamid ah waa uu isaga cararay Bobby Love meeshii asagoo ilmo yar ah waa uu cararay oo wuxuu u tagay walaalkiis asagoo xoolo noolaa guriga walaalkiis ayuu ku noolaa asagoo ka baxsaday meeshii dhaqan celinta waxaa dhacday marka meeshii walaalkiis asagoo ku noolaa ma naqanin qof soo tusaale qaatay xanuunkii soo arka ma uusan naqan meeshii iskuul ayuu ka bilaabay waana qaadasho la'aantii ku soo dhacday tiisii hore waxba lama aysan ahayn wuxuu ku farax xirtay mar labaad uu bartay saaxiibo cusub oo ah maafiyo bangiyada u dhacdo barashadii uu bartay nimankan maafiyada ah dhalinyarada ah ee bangiyada u dhaco ayuu saaxiib la naqday geeskiisii ayuu ka bilaabay asagana howshiisii ayadoo buu weynaatay oo bangiyo dhicis isu bedeshay howshii borso qaadista bangiyo dhicis u bedeshay soo sidoo ahaa mar xilliyada kamid ah waxaa dhacday in ayagoo bangi ku jiro tuugadii iyo asaga uu la socday oo bangiga xadayaan ayaa waxa ka kor imaaday booliskii banaanka ku sugaya ayagoo lacagtii bangiga ka qaateen oo baxa isdhaxayaan booliskii qabtay inuu carro isku dayay laakiin lugaha xabad looga dhuftay kadib waa la waday asagoo isbitaalka jooga ayuu soo miireystay xabsiga loo dhaadhiciyay oo waxa lagu xiray xabsi ah 20 ilaa 30 sano xabsi ah sanad intaas oo sano ah ayaa lagu xukumay xabsigii dil badan iyo nolol cariiri ah ayuu kala kulmay asagoo sidiisii ah wali laakiin xabsigii aan ku qanacsanayn sida uu u baxsan lahaa ka fikirayo ayaa waxa loo soo sheegay geerida hooyadiis waa hooyada kaliya xabsiga ku ogeed wuxuu lacag u baahan yahay u keeni jirtay intii bani aadanimada uu ku jiran ahayd intii hooyada uu keelay haddii uu arkin hooyadii tagtay xabsigiina uu ku jiro wuxuu isku dayay inuu noqdo qof fiican oo noloshiisii isbedel sameeyay inuu noqdo ayuu isku dayay Bobby Love
markii uu isku day inuu qof fiican noqdo oo dhaqankiisa inuu soo fiicnaado la arkay xabsigii waa laga waday oo waxaa la geeyay xabsi kale laakiin ilaaladiisii ila dhaqankiisii oo ka naxariis roon yahay midkii laga soo waday oo qofka xabsiga dhexdiisa soo doono oo u socon karo oo moobeelo dadka kula hadlo oo helayo oo mararka qaar internet oo helayo oo idaacadaha oo isbuuciiba hal maalin oo barnaamijkiisa ama qisadiisa ama barnaamijkiisa wixii oo rabo loo ogolahay inuu idaacada ka sii daayo waa xabsi ilaalisaas u badan sida kii hore ilaaladiisa adkeed camal aan ahayn ilaaladiisa ay fududahay soo sida ugu noolaa oo xabsigii noloshiisii samaha xurriyada u dhow laakiin xurriyadii aan ahaynin ilaalo badan aysan joogin ayaa haddana ninkii meesha haystay xabsigaasi kor mas'uulka ka ahaa sargaalkii meesha haystay iyo asagii xoogo haddana isfahan waa soo kala dhex galeen waxa uu ku fikiray intuu meeshan ku ka ahaan lahaa xabsigan dhexdiisa cuntada ka karin lahaa weli uu 4 daaqadood u xiran yihiin waxa uu ku fikiray inuu baxsado xabsiga agtiisa waxaa mari jiray wada tareena oo mar walba uu maqri jiray shanqartaas tareenka ama codka tareenka waxa uu habeenkii dambe go'aansaday inuu cararo waxa uu lahaa dhar uu ugu shaqeeyo xabsiga gudihiisa iyo dharka xabsiga oo qofka maxbuuska loo xiro waxa uu sameeyay dharkiisii maxbuuska isagoo wato wuxuu ka kor xirtay dharkiisii caadiga ahaa aan la fahmin qof xabsi ka soo baxsaday inuu yahay aan la fahmaynin subaxii markii ilaaladii ay isbedelayeen uu arkay in jawiga wax yar macquul yahay ayuu fakaday oo ka baxsaday xabsigii tareenkii oo raacay asagoona ogeyn tareenka meesha u socdo iyo meesha ka imaaday midna aan ogeyn tareenkii oo fariistay garabkiisii waxaa fadhiday gabar yar maasha Allah su'aalay ninkii ruuxa kaga qaaday xaga ka timid maxaa qabataa maxaa san ugu eg tahay marka magaciisa weydiisay magaciisii meeshii uu kiisii hore ka sheegi lahaa nin baxsad waayo wuxuu dhahay Bobby Lou valley dhaha waa meesha ay ka bilaabatay magaca Bobby Lou valley ugu dhaha ku dhahay ninkii gabadhii oo ay ku dhahay soo u socda tareenkii buu ka degay oo wuxuu bilaabay lacag dhan wuxuu ka haystay lacag yar $100 ah oo bilaabay in noloshiisii uu ku sii maareeyo oo ku noolaado muddo kadib $100 hotel wuxuu iska degay iska raqiis ah muddo kadib hotelkii iyo say ugu socotay iyo cuntadiisii boqolkiina dhamaatay wuxuu ku qasbanaaday in meesha bus stationada iyo meelahaas uu seexdo iyo meelaha wadooyinka iyo inuu seexdo uu shaqo raadiyo ayuu bilaabay xaaladaas asagoo ku jiro oo maalin maalmaha kamid ah shaqo raadis ah ayuu wuxuu la kulmay Cheryl waa qofka xaaskiisa noqon doonto Cheryl ayuu la kulmay Cheryl waa qof degan run badan akhyaar ah shaqaysato reer dhibna aan ahayn meesha ay iska barteen Cheryl ninkii wuu qanciyay soo jiidasho ayuu la lahaaday asagana wuu arkay inay tahay qof nadiif ah qalbi nadiif ah waxa uu ku fikiray adigana waxaa rabtaa inaad naqatid qof isbedelay oo wadada toosan ay qaadid qofkan qof daacad ah waay ilmahooy u noqon karto ayaa siisan ku dhaafin meeshii la isku bartay xiriir la sameeyay la isla socday hasaawo kadib la isguursaday reer la sameystay meel la degay waxay isu dhaleen ay lahaayeen 4 caruur ay isu dhaleen labadooda ee korsadeen waxa ayna isqabeen muddo 40 sano ah 40 sano kadib asagoo ku fikiray in buugii hore la laabay aysan soo bixi doonin wax dambe oo cadeyn ah hadii 40 sano laga aamusan yahay ayaan subaxan ku dhacday in irida loo soo garaaco oo noloshiisii meeshaas ku bilaabato markuu taariikhdii ugu sheekeeyay Cheryl way soo baxday gurigeedii ku soo laabatay waxay bilowday inay u doodo sidii xabsiga ugu soo saari lahayd xilligaas Mareykanka waxa ka taliyay Barack Obama oo asaga xabsiga ku jiray waxay bilowday inay warqado qorto oo looyare u qabato ilaa madaxweynihii Barack Obama ee u qorto warqad ee tiraahdo ninkan naxariis loo sameeyo taariikhdiisii iyo inta ilmaha soo dhaleen inta sano isqabaan iyo ay ka hadashay ayada waxay ka hadlaysaa Bobby Lou ay taqaanay ee kama aysan hadlaynin Walter Millerka aysan aqoonin ee maafiyada ahaa bangiyada dhici jiray aysan ka hadlin laakiin waxay tiri aniga waxaan ka hadlaa Bobby Lou madaxweyne waxa aniga ka hadlaa waa Bobby Lou aaba wanaagsan dhalay 4 caruur ah ahna xaas muddo 40 sano ah aniga waxaan aqaanaa Bobby Lou waxaan ku aqaanaa inuu yahay nin wanaagsan hadii uusan ahaynin isbedelay hadii taariikhdiisii hore sida laga sheegay ee tahay xun tahay waa qof go'aan ku gaar inuu noloshiisii hore bedelo taariikhdiisii hore oo iska masaxo hadii uu magaciisii bedelay 40 sano oo ahaa qof xaas hal guri degan uusan ilmihiisii dayacin naagtiisiina dayacin uusan darbi istaag kale uusan gelin madaxweyne waa nin uu qalmo in la cafiyo naxariisna loo fidiyo ee u fiiri buugi naxariista cafina waa aaba 4 caruur haysto waxaan ka hadlaa waa Bobby Lou kii naxariista badnaa jaceylkana yaqiinay ee ma ahan Walter Millerkii maafiyada ahaa
ninkaas waxaa laga qoray ilaa iyo waxaa jiray website markaas oo arrintii gabadha ay ka hadashay madaxweynihii ee gaartay horta ninkii naxariis ayaa loo sameeyay oo xabsigii waa laga soo saaray waa la soo cafiyay gurigiisii ku soo laabtay marka website markaas website waxaa jira arrintooda mar walba soo bandhigi jiray qisadooda oo ka hadli jiray waa qiso run ah oo ka dhacday Mareykanka North Carolina gobolka laha ay ka dhacday waana qiso jirto waa Cheryl iyo Bobby Love ama Walter Miller kusoo dhawaada muuqaalka waa guurkii 40 sano beenta ku dhisnaa bilaa magaca waa guur run ah laakiin magacii la isku guursaday wuxuu ahaa fake 40 sano nin aad taqaanay oo maanta magac cusub la soo baxay historyga ku taqaana ma ahan history kale xanuun badan yeeshin kusoo dhawaada muuqaalka hadii ay tahay markii kugu horeysan soo booqata subscribe noo saar gambalelkana furso fiidiyoda cusub ku soo gaaraan hadaa hore noo joogtaan like noo saar asxaabtaada noo sii share gareey